sida ubaxaruuriya balku dhufsat war maxay tiri sida ubaxaruuriya wiilku balay badana sida ubaxaruuriya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaantiin waan salaamay dhammaan meel kastoo dunyada ka joogtaan waa anigoo bakayla ku soo dhawaaday channelkayga haddaad ku cusubtiin subscribe saara oo like gareeya comment ka soo bixiya siina share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina aad iyo aad bay ugu mahadsantiin boqolkiiba boqol barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay faaqidaada iyo falanqaynta heesaha kuwooda aan isdhihi karno waa lagu khaldamay ama aan isdhihi karno siyaabo khaldan ayay u dhaceen kulleyba dhacda see ku dhaceen lama dhaha laakiin sidee aan ku saxnaa ayaa la dhahaa laakiin tanu dhacday ha ahaateede tanu waa hees hadda waa heeso maaha waa hal hees oo ay qaadeen ugu yaraan 5 fanaan ay qaadeen oo rag iyo dumarba leh ayaa maanta noo soo bandhigaya ma garanaysaa mana garanayno sababta ku dhacday laakiin muhiimaddu waa in uu isweydiiyo qofka daawadaha bal sababta ay ku dhacday ama isleedahay way ku dhacday tan ma garanayno hal hees waxa ay ku qaadeen 5 fanaan tira ka badan ayaga oo rag iyo dumarba isla qaadeen macnaha ma rabna inaan ku dhacno meelo khaldan ama meelo aanan raalli ka ahayn dadkuna aanan raalli ka ahayn annagoo wax faaqidayna laakiin waxaan ugu horumarinaynaa horta marka ugu horeysa intaan waxaanoo dhan soo bandhigin horta fanaaniinta qaaday heestan hadda waa hal hees oo qura fanaaniinta qaaday baa horta tiradooda idiin sheegaya laakiin yihiin waa kuwa fanaaniintanu sidaad thumbnailka ka aragteenba waxaad aragteen Dayaxta Nuurshe Saadiya Siman Iqra Yare iyo gabadh kale qaaliladan iyo waliba fanaaniin kale badan qadarkeedu ku jiriya malaha mooji laakiin fanaaniin kale badan waa jiraan marka mar raba inaan waxyaabo badan si hor dhaco laakiin bal aan daawano horta Dayaxta Nuurshe walaal waxaad mooyaysaa bal noo soo bandhig soo daa waxaaga baa sida ubaxaruuriya indhaha duronto ilaha wadnaha iyo qalbigaada siito ayantaanu kulana lama ilaawa okay kaas wuxuu ahaa Dayaxta Nuurshe bal Dayaxta Nuurshe hadda aragnay Dayaxta Nuurshe wuxuu ku luqeynayay heestaas erayadeeda iyo laxankeedu aan kala dhicin heestana sida aan xogta ku hayo waxa iska leh Daahir Al-Calasowiya ninka weyn oo konton jirka taqaanaan odayga ee baraha bulshada caanka odaygaas ayaa iska leh heesta bal hadda heesta aragnay okay Dayaxta Nuurshe kama waan aragnay bal hadda qaaliladanay walaal ma qaaliladan ma jaana dhihin Saadiya Siman walaal bal ma soo dawaxays sida ubaxaruuriya indhaha duronto ilaha wadnaha iyo qalbigaada siibto ayantiinu kulana walama ilaabaan okay bal hadaba heesta Saadiya Siman baas yaa qaaday laakiin waxaan ku soo dhageysanay Dayaxta Nuurshe okay Dayaxta Nuurshe qaaday heesta Saadiya Siman baa hadana qaaday laakiin hal hees weeye waa hal laxan waa hal erayo dadka ayaa kala duwan laakiin ujeedada garan maan mara aanan arki jirin hees naagu qaaday oo hadana ninka daba qaadayo laakiin mara aanan arki jirin hees aan naagu qaaday oo hadana ninka daba qaadayo ama hees nin qaaday oo naagu ka daba qaadayso de waa naadir iyo dhif hadii la arkana waa wax yar oo de jira sidoo kale bal hadaba siidaa Iqra Yare bal hadaba iyadana kama walaal qaali soo daa waxaaga Ilaahay ku baray bal noo soo daa sida ubaxaruuriya indhaha duronto ilaha wadnaha iyo qalbigaada siibto ayantiinu kulana walama ilaabaan okay taasoo waxay ahayd Iqra Yare Ilaahay wuxuu u dhibay soo deysay bal Iqra Yare hadda daawanay maxaad filaysaan oo kale 3 qof hadda ma haynaa horta 3 qof oo 3 rag iyo dumar yihiin ma haynaa haddaba heestan waxaanu ku haynaa dadyow kale oo fara badan inay qaadeen laakiin ujeedada aanan ogeyn ay u qaadeen
heesta sidaanu ka dareemayno horta waa jacayl sidaad idinku dhandhaminaysaan ama aad indhihiina ku aragtaanna dad yar ayaa heesta qaadaya heestu horta waa jacayl in yar baanan ma garanaysa idinka soo daynayaa laakiin heestu dee waxaan ku idhi waa weeyaan kowga waa dee jacayl dee xaggee ah kowdha dee heesta magaceedana heestu magac ma laha laakiin waxaa la dhahaa baan umalanaya sidii ubax aruuriyaad inay tahaan umalaynaya okay marka hadda 3 fanaan ayaan daawanay 3daa fanaanba waxay kula tahay heesta inay iyagu codsadeen mise abwaanka ayaa macnaha fanaaniinta u wada dhiibay ayagoo isla wada oo waxaan wuxuu ah wax la isla ogyahay mise waxay ahayd hees macnaha la kala dhacay oo la kala muxuu ahaa iyadoo la isla ogeyn la kala qaato la isku saray oo fanaaniinta lagu saray iyagoon is ogeyn bay ahayd kulleyba heesta haddii fanaan loo dhiibo fanaanka markuu heesta soo saara dee fanaanka kalena wuu arki karaa oo wadee heestan in horey loo qaaday waa la arki karaa ma garanaysaa laakiin anugu waxaan garan waayey fanaaniintan dee dad yar ma aha waa tiro ka 5 ilaa 6 7 8 fanaan ay gaadhayaan ma garanayno ujeedada iskaga soo daba qaadayaan ama iskaga soo daba koobinayaan heesta iyadoo hal erayo hal laxan ay tahay garan mayno ujeedada kulleyba saan maqaalo ku hayno ama aan xogta ku hayno waxaa jiray dee berigii hore dadkan soo kacayeen ee fanaannimada ku cusbaayeen ama mashraxa fanka ay ku cusbaayeen waxaa jirtay inuu ninkaas soo gacan qaabtay daahir calasow la dhaho oo fanaaniintaas uu heesaa iyo laxamada u qori jiray sidaas awgeedna ay ku soo qaadeen taasuna waa macquulgal laakiin ma sheegi karno sababta ay hal hees ay rag iyo dumar u wada qaadi karaan iyadoo uu afka Soomaaliga uu qani yahay oon laga waayin hees ha ahaateedee haddana aan laga waayin abwaano macnaha heesaha qora laxamada qora kuwooda weliba ugu takhaquska badan ayaa Soomaali laga helaa marka ma sheegi karno ujeedada ay hal hees u qaadeen fanaaniin badan ayagoo heestii aan wax laga bedelin innaba ha yaraatee okay intaas waxaa ku eg barnaamijkeenii faaqidaada fanka iyo heesaha intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo intaanu ku kulmi doonno kulan la mid leh oo xiisale waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgeliyo hana ilaabin inaad sii share garayso YouTube channelkan hadda aad daawanayso adiga kula hadlahayaa sii share garay YouTube channelkan hadda aad daawanaysid lana wadaag asxaabtaada isku day inaad subscribe saarto oo ku xidhnaato YouTube channelkaygan kambalelkana aad ma garanaysaa furato aad iyo aad ugu mahadsantahay 100% bye bye